على بيبحث أو صوب بحث واتنا إلى مهديس وعند علو صوب بحث بوربرنا وجد هاد وهتاجنا بوندي بقى بس أنا هالشيء وحافظين ما بلقى لقى حمود webiga Shabeelle ayaa saacadihii la soo dhaafay waxa uu fatahaad hor leh uu ka sameeyay degmada Buulaburde ee gobolka Hiiraan. Xaafadaha webigu fatahaadu ka sameeyay ayaana waxa ay kala yihiin xaafada Indhaceel, Bagaabeyso iyo Bari, isagoona kala jaray dhanka Qoraxsin iyo dhanka Bari wadadii xiriirinaysa ee buundada. Xaafadaha uu fatahaadu ka sameeyay webiga Shabeelle ayaa waxa badi isaga barakacay dadkii deganaa, iyagoona ka cabsi qaba in ay waxyeello ay ka soo gaarto. Waa kuwan qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan degmada oo ka hadlay. Waaragtan biibaxadii sida u soo baxday magaalada dhanka Bari dhanka koonfur way kala weyn xaafadaha Bagaabeyso iyo Indhaceel way galeen xaafado badan oo laga qaxay marka alxamdulillah oo Ilaahay keen waa alxamdulillah galabta waxaan ku soo baxnay dhibaatada ka jirto degmada Buulaburde qaasatan biibaxada nagu hayso waxaan hadda soo marnay xaafada Indhaceel iyo xaafada Bagaabeyso haddana waxaan taaganahay dhanka Bariga oo buundada way waa go'anta dhanka Bariga waa lagu jiirihaya buundadana waxa qarka u saaran tahay inay maalmaha soo socdo inay naga go'do Ilaahay subhanahu wa ta'ala naqina la filahaaya marar badan ay soo noqdeen waxaan baaq u soo jeedinaa dawladda federaalka Soomaaliya waayo degmada Buulaburde waa ka gaabisay waxa waaye wax loo ma hayo 7 sano go'doonsan tahay oo gargaar oo dawladda dhankeeda ugu imaado malaha marka waa alla u maqan degmada wax kale too dhihi karna malaha 7 sano degmada go'doonsan biibaxadii ku soo baxdo dhibaatada kale iska maad hadda coronavirus jiro wallahi waxna welina ma soo gaarin Askari Ali Raage warbaahinta qaranka Buulaburde.